qofkaas aad u jeediin waa gabadhii yareed aabaheed oo hooyadeed laga soo dulqaaday iyadoo meeda qaraxii musiibada ah oo ka dhacay Sabtida Soobe. aabaheed ayaa la helay, waa farxad. laakiin waxaa mucjiso leh, Soomaalida qaar waxay ku fiicayeen in la ciqaabo gabadhii aabaheed markii la helay. dad ayaa sheeganaya gabadhii anaga dhalnay, dad badan ayaa hadda dacwoonaya oo baraha bulshada qabsada oo leeyahay gabadhii anaga dhalnay. marka aad iyo aad ayaa ugu xumahay gabadhaasi aabaheed oo lagu qabsaday. marka laamaha amniga waxaa ka codsanayaa dadkaasi sheeganaya gabadhaasi ay dhalin, haddii ku soo cadaato inay gabadhaasi dhalin, inay ciqaab marsiiyaan oo sharci islaamka ay la tirsadaan. sababtoo ah maanta loo daayo biri wixii ka dhacaa wax walba ayay suubi doonaan. marka waxaa ka codsanaya laamaha amniga inay gabadha la xisaabtamaan oo sharci islaamka la fulaan. sababtoo gabadha aabaheed weliba markaa fiiriso aabaheed iyo gabadhaasi way isku egyihiin wallaahi thumma wallaahi. laakiin dadkaan qasaya oo baraha bulshada ummadda wax kale u dhigaya, waxaa dowladda ka codsanaya inay maaragtay dadkaas ciqaab aad iyo aad mariyaan oo dadka sheeganaya isugu wacaan ayna baaraan qofkii dhalay. markaas caddaanaysaa inta soo hartan ay xabsi geliyaan oo noloshooda xabsi ku dhimaysaan. sababtoo falkan dambiyeedkan dambiye ka badan ayay sii beddelaan haddii midkan loo dhaafo. marka waxaa ka codsanaya dadka sheeganaya wiilkaas ay dhalin ha iska dhaafaan dhibaatada ay ku jiraan. ninkan asaga murugaysanoo naagtiisa ka dhimatay oo ilma rajaya haddeer xabadka wata inaan murug kale u raacisiin ma fiicna. Soomaaliya ilaahay ka cabsada. war waxaa waa adduun waaye, qof dhibaataysan oo dhiig faraha kula jira haddana murug kale ha u shidin, iska dhaafa. gabadhaan iyo aabaheed ka dhexbaxa. Soomaalidaas ayaa caawinaysa. waana fahansan hadda iimaan darada waxay naga qaaday in ma islaadeen wiilka gabadha sheegta inaa cunno ku raadsin, laakiin ma tukalayso. wax walba ilaahay ayaa qoray. gabadhaas iyo aabaheed way isku egyihiin, waana asaar dhalay xaqiiq waaye. qof walba oo maaragtay oo wax garad ayaa fahmi kara. laamaha amniga waxaa sheegay dadkaas inay ciqaab marsiiyaan.